السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. weli waxaynu ku jirnaa A1 grammar book buugga naxwaha ee heerka koowaad ayaynu ku jirnaa. waxaynu qaadanaynaa lesson 4 casharka afraad baynu qaadanaynaa. waxaynu ku baran doonaa basic verbs, waa falalka aasaasiga ah tenniska present simple markii la joogo sidee marka loo isticmaalaa basic verbs, falalka asaasiga. waxaan kasoo baxnay marka b verbs, falalka ka farcma b. hadda waxaan baranaynaa falalka aan b ahayn ama aan ahayn is ama r, sidee tenniska present simple loogu isticmaalaa. waana cashar aad iyo aad muhiim waay. marka lesson 4 waa casharka afraad. basic verbs waa falalka asaasiga ah iyo sida loogu isticmaalo present simple. dabcan markii fal aan p ahayn markii lagu isticmaalayo tenniskan waxaa la raacayaa qaacido. marka formulaasaa sharaxayna. formula wuxuu noqon doonaa kow waxaa samaynaysaa subjectiga ayaa soo qaadaysaa. subject dabcan s ayaa usoo gaabinayaa plus subjectigaas waxaa raacaya do ayaa raacaya ama waxaa raacaya das ayaa raacaya. labada midkood marka waxay ku xiran tahay midka la dooranayo. labada midka la dooranayo waxay ku xiran tahay subject ay ku xiran tahay. ma garanaysaa? subject ay ku xiran tahay plus waxaan raacinaynaa marka original verb waxa wey ficilkii oo sidiisa ah ayaa raacinaynaa. falkii oo sidiisa raacinayna original verb falkii oo sidiis ayaa raacinayna. inkastoo marka qaar dee falkaasi lagu daraayo s ama waxaa lagu darayaa es ayaa lagu darayaa okay, meel la arki karaan qoraynaa. waxaa niri si fiican ula soco. meeshaadaan qoraynaa. waxaan dhahnay markii la dooraayo ficilo aan is ama r ahayn in lagu isticmaalo present simple, formula aan isticmaalaynaa. kow waxaa soo qaadaysaa subjectiga plus subjectiga waxaa la arkaa in la raaciyo do, in la raaciyo ama in la raaciyo das, in la raaciyo das. labadaba waxay ku xiran tahay subjectiga ay ku xiran tahay. subjectiga go-aaminaya plus waxaa la raacinayaa original verb oo soo gaabinaya ov oo soo gaabinaya original verb ficilkii sidiis ah. ama mararka qaarkood waxaa lagu darayaa ficilkii s ayaa lagu darayaa ama es ayaa lagu darayaa. kadib waxay markaasi la raaci karo balaa waxay la raaci karo la raacinaya. weliba xeerkani ama formulahan wuxuu shaqeynayaa markii jumladda ay tahay affirmative. markay tahay jumlad markaasi caadi ah oo markaasi mujda caadi ah. marka mathalan haddii subjectiga uu yahay I ama we ama you ama they, waa group waay sooma. afartan waxaa soo raacay sidoo kale plural nouns. magaca jamca waxay qaadanayaan, waxaa la raacinaya do aa la raacinaya. inta kale waa iska fahmi kartaa. haddii subjecti uu noqdo she, haddii uu noqdo ama haddii uu noqdo he ama haddii uu noqdo
it ama haddii uu yahay singular noun haye muxuu qaadanaya subjectiga dee intaa waa iska caddaayo das ayay qaadanaya marka formulaan la isticmaalaya ovna waxa weye waa original verb wey macnaha ov waxaa kasoo gaabi waa original ficilkii oo sidiisa ah oo aan waxba lagu darin marka magarad saasaa la isticmaalay waaya su-aal markii la rabo in laga dhigo maxaa la sameynaya su-aal hadda markii su-aasha marka laba nooc ay noqonaysaa su-aasha laba nooc ay noqonaysaa haddii su-aasha ay tahay yes no question waana su-aasha asalka ah wey waxaa la sameynaya sidii hore la sameynaa oo aan ku sameyn jirnay b verb maxaan sameynaynaa subjectiga maaragta iyo ficilka ku dhegan baa la isweydaarinayaa bas marka xeelka wuxuu noqonayaa do ayaa isticmaalaysaa ama waxaa soo qaadanaysaa das ayaa soo qaadanaysaa das ayaa soo qaadanaysaa marka labada haddii waxay ku xirantaa subjectiga la isticmaalay ay ku xirantaa mogtahay balaas subjectiga wax kale ma sameynin subjectiga iyo waxaan isweydaariyey do iyo das unbaa isweydaariyey sooma balaas waxa weeye original verb ficilkii oo sidiisa ah oo s iyo waxba laguma darayo balaas marka wixii la raacinayo wixii kale la raacinaya kadibna calaam su-aal waa su-aasha markii la dhisaayo yes no question su-aasha jawaabtii la rabo inay noqoto haa ama maya ka waran haddii la dhisaayo sida halkaa kaaga muuqataba wh question su-aalo markaasi war badan iyo macluumaad badan lagu doonayo in lagu helo su-aalaha noocaas markii la doonayo in la sameeyo maxaa la sameynaa way fududahay kan baa waxaa laga hormarinayaa wh weedkii ereyga markaa su-aalaha loo isticmaalay ilaa iyo 7 eray ilaa 8 eraya waxay ka bilowdaan wh okay marka sidaasaa loo isticmaalaya ma garantay haddaba here are waa kuwaana baa lagu yiri here are waa kuwaana some basic ways qaar ka mid ah hababka ama qaababka asaasiga to use verbs ee loo isticmaalo falalka point 1 qodobka koowaad questions sidee loo sameeyaa su-aalaha hadda su-aalaha laga hadlaya waxa weeye yani jumlada su-aala sidee loo dhisaa anagoo isticmaalayna falal aan b ahayn sida eat oo kale marka su-aala markii la sameeyana waxaa la sameeyaa kuwa maxaa lasoo qaataa wh weedka lasoo qaata waa kana wh weedkii waa soo qaadan waa kana wh weedkii kadib maxaa lagu xijinayaa subjectigaan fiirina subject hadda meesha waxaa ku jira jumlad u baa ku jira sooma una maxay qaadataa waxay ka mid tahay groupkan I we you they iyo plural maxay qaataan do bay qaata sooma okay marka waxaan ku xijinaynaa inta maxaan kala baxeena do marka what do you ma jeedaa subjectii way subjecta kusii xijinaynaa what do you kadibna ficilkii oo sidiis ah oo waxbaa lagu daray what do you eat for breakfast kadib wixii la raacinay what do you eat for breakfast maxaa quraac ahaan u cuntaa what do you eat for breakfast maxaa quraac ahaan u cuntaa adiga kulli waa la mid waa wh weel soo qaado waa kana kadibna subjectii fiiri subjectii meesha waxaa waaye qalinka aad madasho subjectii waxa weeyaan waa kana waa you soomaa dee do baan isticmaalaynaa do saasaa loo isticmaala where do you eat bay noqota kadibna subjectii baa ku xiga where do you eat lunch xagee qooda ka cuntaa majidaa kulli waa la mid when do you eat dinner goormeed cuntaa cashada majidaa wh markii la keeno subjectaa ku xukumaa in do iyo das la isticmaalay haddii 4 5 midkood hadduu yahay I hadduu yahay subjectiga do isticmaal
we hadduu yahay do isticmaal, you hadduu yahay do isticmaal, they hadduu yahay subject do isticmaal, haddii plural uu yahay do isticmaal, laakiin she hadduu yahay subject ama he ama it ama singular noun daas isticmaalaysa. Magarad daas isticmaalaysa. Who do you talk to? yaa la hadashaa. Who waa wh wordkii, subjectigan waa you maadaama you ay tahay, yesna questionka asal ah waa la isweydaari un. Who do you talk to? yaa la hadashaa. Ujeedaa? Who do you talk to? yaa la hadashaa. falka basic baabka waxaa kamid ah waa talk iyo eat way. How do you get to work? sidee shaqada ku tagtaa? Get waa ku tagid. How do you get to work? sidee shaqada ku tagtaa? How sidee do you get aad ku tagtaa to work shaqada? How do you get to work? sidee shaqada ku tagtaa? qofka muxuu marka I get to work by bus, waxaan ku tagaa bus. I get to work by car, waxaan ku tagaa baabuur. I get to work on foot, waxaan ku tagaa lug. Ida ayuu ku oranaya. Why do you study English? maxaad u barataa luqadda Ingiriisiga? Why maxaa do you study English? aad u barataa luqadda Ingiriisiga. marka basic baabka hadda laga hadlaa waxa waa study wey. saddexdaas eat iyo talk iyo get iyo study. kuwa maanta be verb baabunta waa falal gooni ah waa. sidee present simple loo isticmaalaa? marka xeerkaas isticmaalaysaa. had intaba u bedeli karnaa jumlad fiiriya aan u bedelno jumlada caadi aan u bedelno. fiiriya jumlada caadi aan bedelayna. مثلا tan oo kale asalku waxay ahayd subject waa you msoo you. marka you maxay qaadataa de saa u ilowmin geeska aan qorana. I code we laba dhe they saddex dhe I we you afar dhe you afar. iyo plural nounka maxay qaataan? plural noun magaceeja maxay qaataan? do bay qaataan. ida do bay qaataan. marka waxaa leenahay you adiga do mida xeerkaan ku shaqeynaa. subjectii waa you maadaama you ay tahay maxaa raacina? do ayaa raacin. you falka basic baabkana laga hadlaa waxa weeye waa eat. you do eat. adiga waxaad cuntaa. mida you do eat breakfast. waxaad cuntaa quraac. mida breakfast meesha nabada akhriso nabada saasaa loo dhisaa. su-aal markaa ka dhigaysan labadan isdhaafan labadan isweydaari maxay noqonaysaa? maxay noqonaysaa do you eat intaan sida usoo qaad. do you eat breakfast intaan sida usoo qaad. do you eat breakfast ida quraac miyaa cuntaa? haddii la rabo WH question in la sameeyana caadi waa ka horumarinaysaa. su-aashii maxay noqonaysaa marka? what do you eat? maxaad cuntaada noqonaysaa. ujeeda waaya soo soco marka. inta kale isku day adiga inaad samayn karto. isku day wax walbo garaamka waxaa lagu bartaa. ugu horta garaamka waa muhiim. waa 30% inaad luqadda barato ayuu qayb ka yahay. 30% garaamka ku caawinaya. 40 waxaa ku caawinaya ereyo cusub inaad barato. vocabulary 40% ereyo waxay qayb ka yihiin mida waa percent aad u badan. 30% wax weeye inaad ku hadashid ama inaad dhegeysatid. labadaas isku darkooda ku caawinaya. garaamka waa muhiim naxwaa. 30% inaad luqadda fahamto saa kaa caawinaya. haddii 30 uu kaa maqan yahay waa luqadda weli yaa magarkiis waa ag fadhina labis. magarad soo socda marka
point two qodobka labaad sidee loo dhisaa jumlad affirmative ah anagoo isticmaalayna ficilo aan b ahayn mathalan ficilada hadda waxaan soo barnay eat soo mahayn eat basic verbka aan soo barno waa eat baan rabnaa inaan ku isticmaalno tennis simple present marka tennis simple present muxuu leeyahay qaacide aan isticmaalaya gaar ahaan markii jumlad affirmative la sameynayo waxa weeye waa subject s plus waxaa ku xijinaysaa waxaa raacinaysaa do ama waxaa raacinaysaa das ama das ayaa raacinaysaa plus waxaa raacinaysaa original verb ficilkii oo sidiisi ah oo waxba lagu daray mar qaar waxaa lagu daraa marka s ama es way noo imaan doontaa kadibna wixii la raacina la raacaya kan laftirkiisa baraakidaa gelinaynaa sababtoo ah duidaas mar qaarkood waa laga tegi karaa marka optional waayo waa adeeg kugu xiran tahay hadda jumladan fiiri I baa la isticmaalay I aniga waxay ahayd sida saxda ah in do la isticmaalo soo mahayn waa laga tagay kadibna ficilkii ayaa sidiis loo soo qaatay I aniga eat waxaan cunaa toasti maxaa waaya toasti wax kale maaha waa rooti la kuleey waay markii lasoo gadaa la kuleey and fruit iyo miro aniga waxaan cunaa dee toasti rooti la kuleey iyo miro ayaa cunaa marka original verbka ma jiraa kan waa lamid isagana waana dhihi kartaa I do eat waa dhihi kartaa no problem waxaa dhib mara I do eat toast and fruit sidaasaa marka kasii adagba carabka ku adkaysa waan cunaaba I aniga subjectii waa I aniga weeye kadib do idaas waxay qaadataa I waxay qaadataa do qaata laakiin waa optional bracketka waxaa loo geliyay waxa weye waa laga tegi karaa optional weeye qasab ma aha haddaad rabtaan isticmaalin ficilku sidiisa ah oo basic verbka soo qaado waa work s ugu dareynaa maya kadibna intaas siduu soo qaado I work at home waxaan ka shaqeeyaa guriga I work at home waxa aan ka shaqeeyaa guriga I live waxaan deganahay near the station meel u dhow bosteejada bus station bosteejada basaska miyaa train station bosteejada tareenada miyaa lama sheegin marka jumladaha fiiri I aniga eat waxaan cunaa toasti rooti la duway rooti la kuleeyey aan rabaa I aniga eat waxaan cunaa toast rooti la kuleeyey and fruit iyo miro I aniga work at home waxaan ka shaqeeyaa guriga I aniga live waxaan deganahay near the station meel u dhow bosteejada waaya sidee negative looga dhigaa marka fiiri negative sidee looga dhigaya ciddada waxaan soo sheegnay sidee loo dhisaa jumlad affirmative kusoo mahayn okay negative markii laga dhigayo maxaa sameynaysaa I waa soo qaadatay oo subjectiga I markaa soo qaadatay hadda kuwaan qasab waay do idaas fiiri waa qasab in la isticmaalo markii su-aal laga dhigayo sidoo kale markii diidmo la dhigayo in lasoo qaato waa qasab waay waxaa ka tegi kartaa markii affirmative ay tahay bis waxaa leedahay I aniga I waxaa do oo kusoo sheeg inaa xifdi sidaa la rabaa I kooda we laba dhe you saddex dhe they afar dhe iyo plural nouns waa kugu daraya magacyada jamca intaas waxay qaataan
do bay qaataan ida do bay qaataan she iyo hina way noo imaan doontaa he iyo itna maxay qaataan iyo sidoo kale waxaa soo raaca singularna maxay qaataan das bay qaataan das bay qaataan magarat das bay qaataan marka waxaa leedahay I aniga do baa isticmaala khasab wey weliba waxaa kusoo kordhinaysaa sida hore usoo aragnay bibas markaan isticmaalaynay diimi marka not baa la keenaa I aniga do not eat majida ficilka marka original faabsigiisa soo qaado wax kale ma soo kordhin qaacidadii affirmative waa isticmaala not lay kusoo kordhinay bas ficilka sidiisa soo qaado inta kalena ku dar marka I aniga do not eat ma cuno cereal waa haruur la warshadeeyey cereal asal ahaan waxaa laga wadaa waa badarka sida galeyda masagada sareenka iyo wixii la mid ah laakiin cereal hadda in modern english waxa weeye waa haruurkii oo badarkii la warshadeeyey waa marka wadamada reer galbeedka aad baa loo isticmaala waa lagu qurac ahaan baa loo cunaa I aniga do not eat ma cuno cereal waa haruur la warshadeeyey ma cuno I aniga do not work in town kama shaqeeyo magaalada I aniga do not work in town kama shaqeeyo magaalada majida waa tabtii waay I aniga do not leave kuma nooli by my work shaqadeyda wax shaqadeyda aan ka helo kuma nooli waxaa masruuf aan u isticmaalay aan biishto ama masruufto iyo wax shaqada iga soo gala ismala sida ogeed I do not leave kuma nooli by my work shaqadeyda kuma nooli meel kala maaragtay aan ku kabaabaa nolosheeda haddaba markaa diidmo markaa isticmaalaysid waa la soo gaabi karaa point 4 wuxuu ku leeyahay negative contraction soo gaabinta diidmada dunad soomahayn dunad soomahayn meeshii la dhahay fiiri I aniga do not meeshii la dhahay waxaa la leeyahay do iyo waxaa laisku dhijinayaa not kadib owdaasaa la tuuraya waxaa lagu bedelay apostrophe don't ayaa la isticmaalaya marka do not waxaa loo soo gaabiyaa don't muhiimad intaas waa in do not lasoo gaabiyo I aniga don't eat ma cuno cereal haruur ama badar la warshaday ma cuno I aniga don't work kama shaqeeyo in town magaalada I aniga don't leave kuma nooli by my work shaqadayda kuma nooli waayahay qodobka ugu dambeeya point 5 waa qodobka shanaad yes no question sida loo sameeyo su-aalaha imayd yes no questions waa iska fududaa marka maxaa nidhi sharci muxuu ahaa subjecti plus do ama das plus original verb oo mar qaar lagu daro s ama es waa arki doonaa kadibna wixii markaas raacaya raacin marka su-aal markii la sameynayo labadan qasab waaye affirmative kalama waa subjectii markii iyo do-da isweydaari مثلا qofaa wuxuu ku weydiinaya adigii buu kula hadlay wuxuu leeyahay do you eat at home ma guri ayaa ka cuntaysaa do you eat at home ma guri ayaa wax ka cuntaa ma garat yes no question marka owl waxay ahayd you eat at home jumlada marka waxay ahayd you adiga affirmative waxaan you do ay qaadan lahayd like waa laga tegi karaa soo you adiga waxaa loo booday basic original verbka toos lagu booday ficilkii sidiisa la soo qaatay you adiga eat at home waxaa ka cuntaysaa guriga soo maha you eat at home adiga waxaa ka cuntaysaa guriga su-aal ka dhigaa lagu yiri waa inaad sharci usoo laabataa waxaa qasab ah marka inaad dhahdid
do استعمال مركب do استعمال لأنه subject هو you الحالة do you eat at home أوكي كده do you eat at home hey do you eat at home يرنسا do you eat at home كده do you eat at home ma guriga ayaa ka cuntaysaa noqonaysa marka ma jeedaa jawaabtu marka waxaa leedahay jawaabtu marka waxaa marka ka jawaabaysid waxaa leedahay yes ha I aniga marka tenniskan waxaa la isticmaala do su-aasha maxaa marka la sameyn maxaa la isticmaala do markii diin la sameynaya do yes ha I do guriga ayaa ka cunteeya maxay u dhigantaa waxay la mid tahay adigu dhahay yes ha I eat at home waxaa ka cunteeyaa guriga marka meeshaa soo celin lahayd I eat falka eat meeshaa soo celin lahayd waxaad ugu kaaftoomi kartaa falkii subjectii aad ku xijinayso ee aad do ama das markaa su-aasha samaynayso yes ha I do guriga ayaa ka cunteeyaa markay may ay tahayna waxaa leedahay no maya I don't guriga kama cunteeyo ama waxaa dhigi kartaa sida caadiga no maya I don't eat at home guriga kama cunteeyo laakiin sida professionalka ah waa sida ina u jawaabto inaad dhahdo yes I do ha guriga ayaa ka cunteeya mise no maya I don't guriga kama cunteeyo insha allahu tacaala halkaas ayaa waxa weeye kusoo gabagabeynaynaa cashirkeenii afraad ee buugga ewel english grammar book ama